السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada daawadayaasheena qiimaha badan ee inagu xiran kanaalkeena umada ee YouTube. Hadaad ku cusub tahay daawad ay inagu soo biir adigoo taabanaya calaamada subscribe kadibna furo gambaleelka si ay ku soo gaaraan muuqaalada waxtarka leh ee lagu baahiyay kanaalka. Ana ka ilmaami muuqaalka inaad la gareysid mahadsanid. Aynu u gudgalno muuqaalkeena maanta waa mid aad u cajiib badan. ayaan daawadan waxaan jeclaanay inaan kula wadaagno maanta insha Allah. Buutigan wuxuu weeraray gaari baakim ku sugan asigoo miyaaradda ka jibiyay kadibna daaqadii ka galay. Nasiib wanaag qofna kuma jirin gudaha gaariga. Orgigani ma mid caadi ah. uu geesihiisa ku burburinayaa irid ka samaysan miraayad. Markuu jibiyayna dhaladii ma uusan bixin tan kale ayuu ku daray. meeshani waa maqaaxi ay dad badan ku caweeyaan, laakiin waxaa cajiib ah in nin ay baahi qabatay una soo orday maqaayadii kadibna madax ku jibiyay dhaladii miyaaradda. meeshani waa baqaar ganacsi oo lagu gado agabka lagu dhiso guryaha. ninkanina waxa uu iska duwayay iyo si ay u waxaysiistaan badeecadooda, laakiin si lama filaan ah miyaaradda ku soo dullacay bulkeetiyo kor ku xirnaa. miyaaraddii sidaas ayay ku jabtay. sagaaradani waxay si cajiib ah ugu dhex baxday albaab ka samaysan miyaarad si xawaare leh. nina waa sagaar kale oo cajiib ah. waxay jibisay irid dhala ah. meeshana waa maqaayad. waxaan u maleynayaa waxay ka heshay cunadii kadibna sidaas ayay dhalada u soo jibisay si ay cunno uga hesho. diyaaradani waxaa ka soo dhacday mid ka mid ah dhalooyinka diyaaradaha, waxaana dhaladii gelisay mid ka mid ah rakaabkii diyaaradda saarneed. nimankani waxay dheelayaan ciyaarta kriketka, waxaana la soo tuuray kubaddii waxayna ku dhacday dhalo, waa ayna jabtay dhaladii. dhismahani dheer waxaa loo sameynayay miraayad. shaqaalaha dhismaha waxay xirig ku hayaan miraayaddii, laakiin waa ay jabtay dhaladii. nimankani waxay dheelayaan basketball. aynu daawana waxa ku dhacay ninka banooniysito. ma aha wax habboon in albaabka gaariga loo xiro si xoog ah, laakiin waxaa loo xiraa si tartiib ah. aynu daawana ninkan waxa ku dhacay markuu albaabka gaariga xoog u xiray. baabuurkani oo waddada maraya ayaa buundada waxaa ka soo dhacay baraf adag oo af leh. aynu daawana sida ay miraayadda noqotay. daawo xayawaankan sida uu miraayadda u jebinayo. marmarka qaar waxaa dhacdo in ay timaado dabayl xoog badan taasoo samaysa saameyn aad u daran aad hadda muuqaalka ka daawan karto. dabaq ku yaala dalka China ayaa waxaa ka soo dhacay miraayad aad u weyn taas oo ku dhacday wariyahan gadaashiis. xili ay macaamiisha maqaayadani ay waqti ku dhex qaadanayeen maqaayadani ayaa waxaa dhacday in ay furmato dhaladii ama quraaradii dareeraha ku dhex jiray. eygan wuxuu si xoog ah ugu dhex baxay albaabkani miraayadda ah. maroodigan waxa uu gacankiisa ku dhuftay miraayadda baabuurka oo waa ay jabtay.
ninkani wuxuu dusha ugu fadhiistay miraayadda gadaal ee baabuurka oo isla markiiba miraayaddii rush bay tiri ama waa ay jabtay. nimankani intii ay dheelayeen ciyaarta waxaa dhacday wax la yaab leh oo adiguna aad la yaabi doontid. gabadhani waxay miraayadda ka furtay irid oo waa ay ka dhex baxday. daanyeerkan waxa uu dhagax ku dhufanayaa gidaarkan miraayadda ah. sida uu u dhufanayay waa ay jabtay miraayaddii, asiguna meesha ayuu ka cararay. ninkani waxa uu albaabkani miraayadda ah ku dhufanayaa gascadani weyn ee birta ah. markii uu jebiyeyna waa uu galay meesha. ninkani wuxuu xanaaneeyaa xayawaanada. waxaa cajiib ah in ninkani uu ku ciiri karo codad badan oo xayawaano ah. bal dhegeyso xayawaanada codadkooda sida uu u ciyayo. hadba daawada inula wadaag qaybta hoose ee faalooyinka qaybtii adiga kula cajiibsaneed. hadduu muuqaalkani ku cajibiyey like saar, hana ka hilmaamin inaad share gareysid oo asxaabtaada la wadaagtid. waad ku mahadsantahay daawadashada muuqaalkeena maanta. idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaano Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.